dadkii danyarta ahaa ee ku waxyeeloobay naf iyo maalba dabkii dhawaan ka qarxay suuqa weyn ee SD ee degmada Ceelafweyn ee gobolka Sanaag ayaa maanta deeq sadaqo ah oo ay shirkadda Telesom ugu tala gashay bisha barakeysan ee Ramadaan guddoonsiisay 6 qoys ee ku waxyeeloobay dabkaas iyadoo ay shirkadda Telesom u soo wakiilatay guddoonsiinta deeqda sakada ah madaxa shirkadda Telesom ee degmada Ceelafweyn Sheekh Salmaan Jaamac Ducaale oo ka warbixiyay ujeedka deeqdan waxa kale oo goobtaas lagu guddoonsiinayay dadkaas danyarta ah deeqdaas ka soo qayb galay maamulka degmada Ceelafweyn Cuqaal oo hadalka isaga kala dambeeyay ayaa shirkadda Telesom ku maamuusay sida hagar la'aanta ay shirkadda Telesom uga shaqeyso horumarinta magaalada iyo u gargaarinta dadka tabaalaysan waxaana hadaladoodii kamid ah anigoo ku hadlaya afka Telesom ayaan bisha maxay tahay Ramadaan markay ahayd oo 3 bisha meelahaas ayaa waxa dab ka kacay halkan aanu taaganahay dabkaas wuxuu sababay in maxay tahay ay gubataan mood iyo noolba halkaas aynu taaganahay ayaa dabku hareeraha uga kacay dabadeedna ilaahay uun baa baqtay wixii gudaha ka yaalay iyo wixii dhisnaaba dambaska ayay noqdeen sida aad arkaysaan sida daraadeed ayay shirkaddu arinta ka xanuunsatay dabadeedna dadkaas ayay waxay ugu tala gashay in ay sandaqadahoodii iyo wixii hoos yaalay wax ka midaba ay ka xusto waxayna noqdeen dadkaasi marka la eego sandaqadahaasi waa 6 sandaqadood markaasna dadka waxaan ugu tala galay lacag 800 inaan qof walba gacanta ka gelino shirkadu waxay caan ku tahay oo aad iyo aad mar walba ugu sifaysan tahay inay dadka u tudho kana shaqeysato awlan ilaahay baa mahad leh aan u mahad celinayaa labaad waxaan doonayaa shirkadda Telesom oo ka jawaabtay baaqi runtii aan oran karo waxa weeyaan waa baaqi waa jawaabtii ugu horeysay ee halka ka timaada intii iyo maalintii dabkaasi kacay waxaan leeyahay Telesom waxaan u mahad celinayaa وقبضك أي ضد كل شو قاعد إلهي ومحله لكم حاجة مهنا غينا كذا تهسم جودهان قارهان تجمد عيلفين ما ممكن تجمد عيلفين وسأل الشيء وتاجن وبرجاريت كذا كذا يرتاح تجمد عيلفين وحنكررها كان دنيا أنا بلاغ قدره شركتها هلا تجمد كان عسده سيدا شركتها ده في ذاكله وأنا فيني إن Telesom كسوهرين تنتو إحنا وين سجننا لما شعب في عيلفين بدو يدبد بيجي حكومة دون حقوق باقينا dadkaas waxa maanta la siiyay waa wax faraguudkooda oo ku mahadsan Telesom gargaarkii iyo taakulantii waqtida Ramadaan la bixin jiray ilaahay baa ku soo beegay waa la sugayaa anad ka doodaha hoos ahaan wixii aanu qaban karo waxba nooga miliyaale waxaan halkan maanta runtii aan uga mahadnaqaynaa ilaahay baa marka hore mahad leh waxaan ilaahay uga mahadnaqaynaa shirkadda Telesom oo halkan caawimo ka geysatay dadkii danyarta ahaa ee ku tabaalooday dabkii ka dhacay 2 Ramadaan waxaan leenahay jazakallahu khayr waxaan u mahadnaqaynaa shirkadda Telesom ee ku caanka ah in dadka wixii dhibaataystay caawiso waxaan u mahad celinaynaa horta marka hore ilaahay baa mahad iska leh mar labaad waxaan u mahad celinaynaa shirkadda Telesom ee iyadoo si soo xilqaantay dadkii waxyeeladu gaadhay meheradahoodii ka gubteen waayo magaalada kala badh magaalada deganaa halka kan oo ganacsato wahay marka shirkadu aad iyo aad ugu mahad celinayaan gabadhii waxa iyaguna halkaas ka hadlay ugana mahadnaqay shirkadda Telesom deeqdaas ay soo gaarsiisay maanta dadkii danyarta ahaa ee la guddoonsiiyay deeqdaas waxaana hadaladoodii kamid ah waxaan nahay dadkii ku gubtay halka kan sadaqadaha kan anta nasiib wanaag waxaan u timi hay'adda Telesom oo nasiisay lacag xoogaa 800 kulli waa halkii ma bixin karto laakiin waan u mahad celinaynaa 100%. waxaan nahay shirkaddan dadkii ku gubtay dad nagama guban laakiin si adduunyo waa naga gubantay alxamdulillah rabbil caalamiin maadaama dad naga guban aad baan ugu faraxsanahay shirkadda Telesom oo na soo gaarsiisay lacagayo aad baan ugu mahad celinaynaa Axmed Anwar TV-ga caalamiga Somali Cable Ceelafweyn